dhawada saaxiibayaal dabcan waxaan isla fiiri doonaa magaaladii Sharm el-Sheikh iyo waxa ka dhacay Donald Trump ayaad moodaa in uu iska noqdaba nin sidiisaba inuu dadka iskaga raaxaysta ay tahay hadii aan ogeyn Donald Trump oo xafiiskiisa ku qaabilay Oval Office madaxweynayaasha Ukraine iyo Carabta iyo madaxweynaha South Africa iyo kuwa kale oo dalal kale ka yimid oo wax rab iskaga jeesay hadda wuxuu bilaabay inuu fagaaraha caalamiga dalalka kale outin inuu soo aado inuu dalalka kale macnaha wuxuu raba ka sheego niman dictator uu amaano gabdho uu amaano niman kale oo madax sarsare isku haysta caalamka sanka ka haystay oo caayo dulaysto ayuu bilaabay Sharm el-Sheikh waxaan filaynay inay go'aano macquul ah danaha bariga dhexe looga hadlaa ka soo baxaan laakiin waxyaabo kale oo isbedel ah ka soo baxay muuqaalada la soo warinayo waxay sheegayaan ra'iisul wasaarayaal badan oo heer caalami ah oo iska xanaaqooba oo hinka imaan tagday mar uu shir jaraa'id si wada jir ay soo wada saarayeen waxyaabo uu yiri wax kamid ah France, thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. He's my friend. That's great. Good job. Thank you very much, Emmanuel. Germany, the new Chancellor of Germany he's easy to spot because he's very tall. And he's very smart, and he's doing a fantastic job for his country. Appreciate it very much. And congratulations, a big election. That was a big one. That was going to change things. Greece, we have Greece. We have Hungary. Oh, Victor, where is Victor? Victor. We love Victor. Victor, I call him. You know, I put the little accent on it. You are fantastic. meeshaan intii shirkii jaraa'id lagu jiray boodhka la taagnaa ayuu horta wuxuu macnaha bahdilaad kala dulacay madaxweynihii Faransiiska Macron oo indhaha jeejeediyo hadalka xitaa ku dhigaba taas bedelkeed wuxuu ammaan kala dulacay nin Yurubiyaanka dalalka Yurub midowga Yurub leeyahay ay aad u dhaliilaan oo ay aad u nacbeen xitaa maqalkiisa dalka Hungary madaxweynaha Mr. Victor oo aad u ammaan u leeyahay xitaa waxay dadku ku arkaan waxba igama gelin laakiin aniga mid qosaysan fiican oo shaqo fiican qabtaa tahay uu leeyahay oo aad macnaha asoo ku dhaga hadlaya waliba ra'iisul wasaaraha Ingiriiska iyo waliba madaxweynaha Faransiiska dabcan iyo Jarmalka ra'iisul wasaaraha Jarmalka dabcan haweeneyda Talyaaniga hogaamisa ayada cunsuriyadiska oo waba taageersan tahay ninkaas waayo ayadaba xisaabta xagjirada iskaga tirsan taas oo cunsuriyada marka taas horta waa wax la yaab leh ku ahayd laakiin waxa la yaab kale oo dhacay intii shirkaas iyo wada tashigaas iyo